muuqaalka aad arkaysaan waa bulshada degmada Beled Xaawo oo galabta markii ay dawladda Kenya soo rasaasisay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ku sugan degmada Beled Xaawo isugu soo baxay isla xuduudda degmada Beled Xaawo sheegayna inay iska dhicin doonaan dawladda Kenya iyo dabadhilifyada hoosta uga jiro halban ku sheegay magal wiilkeen dadkana xirtaan way gadgadaan